intaa kadibna ninkani waxa uu weerar ku qaadayaa markaasi Calaa-ad-Diin iyo Aykut iyo Jeerkutay gacanta ayuuna ku dhigayaa isaga oo markaasi u badan tahay inuu Calaa-ad-Diin ka xeesan doono dhanka iyo Oljayto Khan uu u diri doono maadaama uu uga aarayo laakiin gabadhii uu ka xeesan lahaa ayaan sugaynaa cid ay noqon doonto. ninkanina doorkiisa waxa uu noqon doonaa mid aad iyo aad u adag isla mar ahaantaasna Mudane Cusmaan wajihi doona. halka dhanka kalena arkayna markaasi ninkii Calaa-ad-Diin ahaa iyo xaaskiisa Goonja oo teendhada ku jira aad buuna u caraysnaa. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa inuu u yimid ayuu igu leeyahay fulay baa tahay maaniga fulay ah waan isbari doonaa ayuu leeyahay. ciduu ka hadlayna cid kale maaha waa walaalkiisa Orhaan. khilaaf ayaana labadooda dhexdooda ka dhashay halka Orhaan laftirkiisa aynu arkayno isaga oo dhahaya hadafka Mudane Cusmaan uu leeyahay oo ah inuu dowlad aasaasay isla mar ahaantaasina dunida weyn ay gaarto hadafka dartii waxaan diyaar u ahay ayuu leeyahay arrinka haddii uu quseeyo walaalkeyga amaba uu quseeyo sidoo kale aniga wiilkeyga inaan uga tanaasulo dowladnimada Mudane Cusmaan. diyaar waxaan u ahay hadafka Cusmaan dartii inaan wax walba u sameeyo wiilkeyga iyo sidoo kale xitaa waxa uu leeyahay walaalkeyga hataa garamaya marka nooca oo kale ay gaarto taasoo ka dhigan marka arrin dowladda quseysay Calaa-ad-Diin Orhaan inay isku qabsadeen isla mar ahaantaasna labadood midkood uu qalad galay kadibna kan kale la rabay inuu u naseexeeyo laakiin si kulul ula hadlay. waxaa laga yaabaa Calaa-ad-Diin inuu qalad ka dhici doono xalqada soo socda Orhaanna uu isagana si qaldan ula hadli doono taasoo keenaysa marka Calaa-ad-Diin inuu xanaaqo isla mar ahaantaasna kursiga isagu ku fadhiyo ayaan arkaynaa dhahayna markaasi sidoo kalena wata seeftii awowgiisii Arturul. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sidee ayay ku dhici kartaa inuu u yimaado iguna dhaho fulay baa tahay seefta ayuuna dhulka ku garaacaya. aad buuna u xanaaqsanay xaaskiisana kamaysan helin markaasi hadalada Calaa-ad-Diin halka Holoferna iyada sidoo kale ay ka helin hadalada Orhaan. dhanka kale waxaa arkaynaa mar kale ninkii Cusmaan ahaa teendhadiisa ka soo baxaya gadaashiisana qoyskiisa oo dhan ay wada taagan yihiin. muuqaalcaynkan oo kale in la arka mar hore inoogu dambeysay hadaladiina waxaa ka mid ahaa waxaan ahay Mudane Cusmaan marnaba ogolaan maayo qofna inuu i kala saaro aniga shacabkeyga iyo calankeyga layma kala saari karo ayuu leeyahay labaduba waan jeclahay. dhanka kale waxaan arkaynaa nimankii lagu kala magacaabayay Olekjar iyo Gladius oo kulmaya isla mar ahaantaasna ku kulmaya qasrigii Sofia diyaarna u aha labadooda inay midoobaan maadaama hal cadow leeyihiin halka ayana ku wada cunteynayaan diyaarna waxay u yihiin inay Cusmaan si wada jira uga hortagaan indhala-aan. halka ninkii Cusmaan ahaana goosgooska dhammaadkiisa aanu ku arkayno iyada oo caruurtiisa isdagaalayaan isla mar ahaantaasna doonayaan labadooduba gacanta inay isku qaadaan. Cusmaanna waxa uu ku leeyahay markaasi igu filan intaan oo naga kala daaya ayuu leeyahay labadiinaba. hadalkiisii hore uu u wato oo ahaa qofna uma ogolaanayo oo kama saamaxaya aniga inuu kala saaro dowladeyda iyo shacabkeyga ama calankeyga xitaa haddii yihiin caruurteeda uma ogolaanaya ayuu leeyahay. goosgooskana sidaa ayuu markaa kusoo dhammaanayaa. dhankii kale waxaa ka hadal mudan gabadhii Xaliima ahayd xaggee ay arrinkeedu ku dambeyn doonaa maadaama iyada ilaa hadeer aanan la arkin. haddaba Cusmaan iyo Baala miyay isku sheegi doontaa? taasi uma maleynayo inay dhaceyso. waxay ku fiican tahay qof kale inay ka ogaadaan Cusmaan iyo Baala maadaama gabadhaani awooddaas aysan lahayn ee ay ku tiraado waxaan ahay gabadhiinii iyaguna maaha kuwa sidaa ku aaminaya. laga yaabay Baala inay aaminto maadaama ee ka aragta markaasi sida gabadheedoo kale inay tahay in badan ay ku dhahday gabadheedii baa u eg tahay marka ku arkana dareen hooyanimo ayaa i qaada laga yaabay iyadu inay aaminto laakiin Cusmaan maaha mid sidaa u fudud. labadooduna afka Sofia inay ka ogaadaan ayay quruxdu ku jirtaa si markaasi ay Sofia ugu cadeyso mase laga yaabaa Sofia sirteeda inay fashisho maadaama uu doonayo ninka Olekjar lagu magacaabay abaanduulaha Mongooliska ah inuu gacanta ku dhigo laba cunug oo ka mid ah Cusmaan caruurtiisa maadaama Calaa-ad-Diin gacanta uu ku dhigay Cusmaanna uusan ogeyn markaasi gabadhiisa Xaliima inay iyada tahay gabadha Maryan hadda lagu magacaabay u joogta markaasi teendhada laakiin uu ogyahay markaasi
gabadhiisa Faadima in markaasi Sofia ay sameysay inay gacanta u geliso ninkii Olokjar ahaa gabadha lagu magacaabo markaasi Xaliima. kadibna Cusmaan lagu yiraahdo wiil iyo gabar ayaan ka haystaa, indhahana ay taagi doonaan hadama kaliya og yihiin in wiil laga haysto, sidaasna ay ku kulmi doonaan Alaadiin iyo walaashiisa Xaliima. Cusmaan iyagana markaasi ay ogaan doonaan isaga iyo Baala in markaasi gabadhoodii Xaliima ay nooshahay, sidoo kalena in badan ay ag joogtay. waxaan isleeyahay waa scenario-ga ugu fiican ee awd filim aan ku daawan karno haddii sidaa la sameeyo. laakiin Sofia inay tanaasusho ayaa ka horeysa. daawada adigu sidee u aragtaa? wixii fikirkaaga dhanka hoose comments-ka ayaad nagula wadaagi kartaa. qaab noocaas ah haddii filimka loo dhigo, uma maleynayo wax ka qurux badan inay jiri doonto xalqadaha soo socda. hadiiba Cusmaan mar qura uu heli doono markaasi, macnaha Cusmaan hadda taxadar wuxuu ugu jiraa inuu ilaashado gabadhiisa Faadima, maadaama gabadha kale isaga laftiisa gacanta uusan ku hayn, uusan aqoon cid ay tahay. naagtii Sofia lagu magacaabayay Olokjarna ay midoobeen, Sofina hadda ay doonayso markaasi wax walba inay fashisho, sidaa darteeda inay sheegta laga yaabaa Olokjarna gacantii u geliso, sidaana wax walba lagu ogaado. haddaba ninka lagu magacaabo Olokjar miyuu ka haysan doonaa Alaadiin? xanaaqi Alaadiin haayay asagii Orhaanna waxaa laga yaabaa Alaadiin inuu duurku baxo, asagii khilaafka ka dhexeeya Orhaanna iyo marka la wadanayo khilaafka inuu horeeya laga yaabaa. kadibna Alaadiin waxaaba gacanta ku dhigayo ninkii lagu magacaabayay Olokjar, isagoo hore u sii kala tuuraya ayaana markaasi goosgooska ku arkeynaa. daawada wixii fikirkaaga dhanka hoose comments-ka nagula wadaag. muuqaalkeena maantana intaas kusoo koobayaa, waana idinka raaligelinayaa intaa idinka soo daashay. fadlan hadaa janalka cusub tahayna subscribe noo saar, intaanu ku kulmi doono muuqaalkiisa iyaga waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.